حالته بلا عشاء حتى والله كساحت دائما هذا والله كلها ساترتي لا سوق قانمي هذا ما انت waxay halka u jiiftaa wadin bilaadan uu ku leeyahay hata maanta hooyadii maanta taa ku dhacdo kumaysan dhacdeen timi wixii ilaahay u deegartay way dhacayaan oo dil celin kari maayo xaaladeeda intay qabtay waxay qabtaa iminka inantu adimadana way arkaysan oo dil fi dibadda u soo baxeen araxda xanguulahana way ka jaban tahay baan qabaa anigu dawada halkan aan ku sugannahay waa isbitaalka weynaa magaalada Burco saaka waxay soo gaadhay dhacdo ah in mid kamid ah haweenkii magaalada Burco degan ay iska tuurtay bariishka magaalada Burco taasi oo xaaladda sababtay aan u niminaan ogaano halkan waxa taagan aabaheed inanteedii walaaladeed iyo familigeedii oo dhameystiran waxaan doonaynaa xaaladda halkan maanta sababtay inantaasi in halkaas iska tuurto ama dhibaatada soo wajahday in qoyskeeda si faahfaahsan aan uga wareysano walaal soo dhaweeyay maxaad isku tiinanta aniga waa walaashay waa run faarax warsameeyo nuura faarax sameeyno kala nahay waxaan dadweynaha ka codsanayaa walaashay waxa iskaga tuurtay halka aabahay oo badan bukaana oo kaadu qabato wadna xanuun leh dan iyo duruuf baa keentay haday duruuf keentayna deyn ayaa lagu lahaa badan waana dhacsanayd way dhacdaa ilaash baan ka soo saaray imikaana 12 cisho ku hayay aan dawada ilaashkan siinayay saaka goor hore iga soo baxday haddii iga soo baxdayna yar ladnaatay baan mooday dee saaka saasay iskaga tuurtay oo dantaas keentay deyn badanna waa lagu lahaa oo waxa iska dhaaf ku bixisay deynka badanna saacad walba lagu qaanabayo oo inankeeduna uu kaga ciyaaray USB lacag yar ay haysay oo dadka deynka iskaga bixin lahayda USB kaga ciyaaray anaanan haynin maanta dhakhtarka waxaan kaga caawiyo abaheedna waa bukaan hooyana male waa rajo soo dhaw walaal walaal waxaan inanteedii waxa toole saaka way soo qaraacday waxay ugu tiri hooyo suuqan ku socdaa ee ku shubasho igu soo shub waxaan ku yiri hooyo wixii xalay inankaaga ka caraysantaa tatana waxay ugu tiri hooyo inankeeda la markii wiiga qaban waayo suuqi baan qabanaya waayo free baan ugu shubay midday maanta meesha isaga turtay baa haynaan waxba haysanin tatana xalay toole waxa qof baa malaan yar lacag u diray lacagtii uu diray lambarkii inankeeda lagaga khalday inankeedina lacagtii lambarkii kama uu qaban uu ka cuno saadisna bil buu qaataa bil walbana hooyadii wuxuu taray iska day xitaa koobka shaaca kama soo waraabiyo bishan isku haleyn waxa ku soo diray tiisina wuu cunay shalay tiirada dadku ku sadaqaysteenna wuu cunay aniguna waxaan ku rahay maanta waxaan ku soo diray caawigu ma jirto shukushin hatta igu ma jiro dadna waxa ka carooto xalad walba casho hatta wallahi ku soo xad daymadan hooyada waa lagu laasay tirtay la soo qaaqaanaday marka dambana la soo qaracay waxa lagu naankaaga gaara lacagtii naga sii sida lagu yeesho deesoonana soo korsan adduunka saddex qof bay ka ilaashata inteena soo kornisay wixii ay ma ahata Soomaa waana xanuunsanaysaa xanuun cilaaj bay qabta meel walba istiraada imka maanta ka shaqeey ma shaqeysan karto haddii maanta istiraada shaqeyso way xanuunsanaysaa waxa ku jira xanuun shaqadii u diidaya dadna wixii markii anaga soo kornisay isticmaalaysay wax walba anagu nagu bixin jirto Soomaa maanta midna waa kan aniga uga yar uu joogaa waa bilaa camal aniguna laba carro haysta waanta waxa la waxaan tiri karaa anigu ma jirto de inaan ku raado hooyo ila cuno ila cad mooyaan wax waaweyn aan qaban kara ma hayo waxaan ka codsanayaa hooyaday maanta waxay halka u jiiftaa wadin bilaadan uu ku leeyahay hata maanta hooyaday maanta taa ku dhacdo kumaysan dhacdeen wala ma istaabiyana waa kan isagii baa iska bukaana ayadu waa bukaan maanta walaashada ayada laftirkeedu waa naafo cid Allah la cid maanta hooyada habar ay ku ciirsatay ma lahan dhibaatada keentay baa taasa inaana waxa laala waxay haysatay jirnida waa carabta ma haysato maanta qof walba tiisi baa haysata anigu waxba ma qaban karo way walaal lambarka laga soo wala la yeeli karaya 167 samdale barakaad buu leeyahay 167 shilkan ku dhacay aabaheed baana muddo doorana bukaan baan anigu iyo bukaankaas oo dhakhtarka qanjirka iyo kaliyaha baa laga qalay ayay inta iyana iga geesi iga qaylinayso lahayd deynkaasaan aabban ka yaabaya inaan dab isugu qabto ha isugu qaban ilaahay baa si uu kaalmeyn doono ama inuu dhiman doono de ama ilaahay inaga bixin doona dabadeedna waxa dhacda dootimi wixii ilaahay u deegartay way dhacayaan oo dil celin kari maayo xaaladeeda intay qabtay waxay qabtaa iminka inantu adimadana way arkaysan oo dil fi dibadda u soo baxeen
adhaxda xaanguulahana way ka jaban tahay baan qabaa anigu waa qof adkaysan badan anigu dee laba jirkeedii baan hayo anigaa dhalay waa xaanguulaha dhabarka inuu ka jaban tahay dhabarro aan muuqanin oo iminka kaloo soo baxayaana way jiraan oo iminkaba ii muuqdaa aniguna hayntayda iyo itaalkaygana dee waa arkaysaan waxaan leeyahay islaamka dowladda somalilan haddii ladnahay dhakhtarada madaxda islaamka waxaan doonayaa in arrintaa iyada ah waxaa kalifay inantaa waxaa kalifay dayinkaa bini-aadmiga ee loo haystay ay habeenina habeen hooyan kari weyday meeshii caawa hoyataba way ka cararaysaa ehel iyo meel aan kaloo aan alle maahaane garan maayo cid kale arrinkaa la ciirsata ma jirto haa cid kale aan la ciirsado garan maayo waxaan ka codsanayaa dowladda somalilan sare iyo hoos in iyo ummadda islaamka in laga soo caawiyo arrintaa iyada ah laga soo bixiya oo laga soo caawiyo hoosna loo eega faarax warsamo haddaan ahay waayo faarax warsamo aad u mahadsan tahay wadayaal sida aad ku maqlayseen xogta qoyska inoo bixiyeen halkan waxaa jirta arrin u baahan in wax laga qabto keliya ma aha muuqaal inta la daawado la dhaafi karo kani ilaahay subxaana watacaala qofkii kurbo qof islaamka ka kor qaada isagana ilaahay wuxuu ka kor qaadaa kurbooyin kale iyo xaalado kale waxaan rajeynayaa in lambarkaa inantu ay sheegtay lagu soo hagaajiyo wixii lagu soo tari karo